Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadlan hadaa channelka ku cusub tahay oo ay tahay marka ugu horeysa aad daawanaysid muuqaaladeena, fadlan subscribe saar channelka, gambalelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya muuqaaladeena cusub. Muuqaalkan waxaan ku soo qaadanaynaa ninkii dunida ka badbaadiyay colaad nuclear ah. Askari ka tirsanaan jiray ciidamadii midowgii Soofiyeed oo in badan lagu amaanay in uu baajiyay musiibo dhanka hubka nuclear-ka ah oo xilligii dagaalkii qaboobaa ee adduunka ayaa geeriyooday isagoo da'diisu ay tahay 77 sano. Petrov ayaa ka shaqaynayay xarunta digniinka nuclear-ka ee dalka Ruushka sanadii 1983 xilligaasi oo qalabkii xaruntaasi ku rakibnaa uu si qalad ah u muujiyay gantaalo lagu soo riday dhanka Mareykanka oo ku soo wajahan dhanka Ruushka. Waxa uu qaatay go'aan ah in digniintaasi ay tahay mid qalad ah mana uusan ku wargelin madaxdiisii ee ka sareysay arrintaasi. Go'aankaasi oo soo shaabaxay sanado kadib ayaa loo arkaa in uu baajiyay dagaal la isugu adeegsan lahaa hubka nuclear-ka. Petrov ayaa bishii May sanadii 2016 ku dhintay gurigiisa oo ku yaala magaalada Moscow, balse waqti dheer kadib ayaa geeridiisu soo shaabaxday. Wareysi uu siiyay BBC-da sanadii 2013 ayaa Petrov waxa uu ka sheekeeyay sida ay wax u dhaceen 26 Sebtembar sanadii 1983 xilligaasi oo qalabkii ku rakibnaa xarunta digniinta iyo ka hortagga nuclear-ka ee Ruushka uu si qalad ah u muujiyay in dhowr gantaal laga soo riday dhanka Mareykanka. Waxaa isoo gaariyay xog muujinaysa in gantaalo nagula soo riday. Haddii aan arrintaasi u gudbin lahaa madaxda, ma jiri lahayn qof oran lahaa macluumaadkaasi waa kuwo qalad ah, ayuu yiri Petrov. Waxaan kaliya ee aan samayn karo ayaa ahayd in aan telefoon kula hadlo dadka iga sareeya ee madaxda ah, balse sidaa ma aanan yeelin aniga. Waxaan dareemay sida in aan ku fadhiyo dab aad u kulul, ayuu hadalkiisii raaciyay Petrov. Inkastoo xilligii uu tababarka ku jiray lagu soo amray in si toos ah uu ula xiriiro militariga midowgii Soofiyeed haddii uu halis dareemo, balse Petrov ayaa taa beddelkeedii telefoon u diray askari maalintaa ka shaqaynayay xarunta taliska militariga. Waxa uuna u sheegay in qalabka yaala xarunta uu ciladaysan yahay. Haddii uu si qalad ah u fahmay xogta in uu weerar ku soo wajahan yahay gantaalka ugu horeeya ee nuclear-ka ah ayaa dalkaasi ku habsan lahaa. Daqiiqado kadib 23 daqiiqo kadib waxaan ogaaday in wax weerar ah uusan dhicin. Haddii uu weerar dhab ah jiri lahaa, dabcan durbaba waan ogaan lahaa. Marka anigu waan nafisay, ayuu yiri Petrov oo hadalkiisii sii wata. Baaritaan markii dambe la sameeyay ayaa lagu ogaaday in qalabka digniinta ka hortagga nuclear-ka ee midowgii Soofiyeed uu ku qaldamay ilayska cadceedda oo ku dhacaya badda, kuwaasi oo ay maleynayeen in ay yihiin gantaalada ridada dheer ee isaga kala goosha qaaradaha. Petrov oo ahaan jiray gaashaanle dhexe balse hadda howlgab ahaa ayaa dhintay 19 bishii May sanadii 2016, balse warka ku saabsan geeridiisii ayaa la ogaaday sanadii 2018. Karl oo u dhashay dalka Jarmalka ahna nin aflaanta sameeya oo markii horeba sheekada Petrov dunida u soo gudbiyay ayaa 7 bishii Juun sanadii 2018 wacay Petrov si uu ugu hambalyeeyo sanad guurada 77 ee ka soo wareegatay dhalashadiisa, balse wiilkiisii oo ka qabtay telefoonka ayaa u sheegay in aabihii uu mar hore geeriyooday. Karl ayaa geerida Petrov ku faafiyay isla markiiba barta internetka, waxaana markiiba dambe baahiyay warbaahinta kala gedisan ee adduunka.